dowladda hoose ee degmada Burco oo kaashanaysa shacabka magaalada Burco iyo qaar ka mid ah shirkadaha ayaa maalintii saddexaad bilaabay olole ballaaran oo lagu nadiifinayo goobaha qashin qubka ee degmada Sheekh Bashiir gaar ahaan xaafadda Balaasa ee magaalada Burco. Mas'uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Burco oo uu hogaaminayo maayirka degmada Burco ayaa shacabka kala qayb qaadanayay ololaha nadiifinta xaafadaasi. ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Burco iyagoo si weyn ugu mahadnaqay dadkii kala qayb qaatay ololaha nadaafadda, sheegayna inay maalmaha khamiisaha ay maalinba xaafad gaar ah nadiifinayaan. maalin kasta anagu ololaan iskaga jirnaa iskaragooyinka dhammaan magaalada way ka qaadaan caqabteedu subax kadiya ma istaagto laakiin maalinta khamiista waa maalinta ugu talagalay dadweynuhu inay nala shaqeeyaan oo ay nagala shaqeeyaan meelaha xaafadaha ee qashinka badanka ay soo dhigaan ama si kalaba kuwa ka fogay ay soo dhigaan. halkana maanta taaganay markaa waa meeshii u dhaweyd garbada ee dooxa dhinaciisa saddex aag baanu maanta galaynay. dooxa aag ee ka soo bilaabma biriishka deero ilaa ma dooxa sidan u soo raaco garbada soo gaadha iyo marka la soo gaadho airportka labadiisa dhinac wadada oo la raaco masaafo ilaa 1 kilomitir. intaasaan maanta isu kala qaybinay shacabkii reer Balaaso oo dhan iyo guud ahaan degmada Sheekh Bashiir baan la shaqeynay. aad baan ugu mahad celinaa dhammaan bulshada reer Burco oo ilaa maalintan ololaha bilownay isxilqaamayay qashinkooda ururinayay. maalin kasta khamiis si wanaagsan maalinba aag baan u gali doonaa maalinba deg baan u gali doonaa ay si wanaagsan ula shaqeeyaan. runtii farxad bay noo tahay bulshada Burco gudaheeda mar kasta dhawaaq naga soo baxo inayna garab taagan tahay. aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaynaa. waxaanu khaasatan u mahad celinaa si gaar ugu mahad celinaynaa guddida isku xidhan ee abaabulan ee xaafadda Balaase oo ilama iyo maalintii dhawaaqa aanu ku dhawaaqnay iyaduna isxilqaantay. ololaha ballaaran aanu bilownay waa maalintii saddexaad ee ololaha magaalada Burco ka socdo. ilaahay baa mahad leh. dadka reer Burcana waa dad wanaagsan, waa nagala shaqeeyaan. mahmaha Soomaaliyeedna waxay tiraahdaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. haddaan dadka reer Burco iskaaga garab taagin waxay noqonayaan hal bacaad lagu lisay. marka mar walba waxaan u baahanahay bulshada reer Burco awaaciheedo dhanba. maanta goobtan aynu joognaa waa degmada Sheekh Bashiir. degmada Sheekh Bashiir oo ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn magaalada Burco. sida xildhibaanku sheegayba 3 jiha ayaa maanta halkan laga bilaabayaa. toga dheere Burco oo koowaada iyo airportka labadiisa jiho waqooyi iyo koonfur oo iyaguna sidaa u dheeraran. saddexdaa jihaanu ka bilaabanaa ololaha. dadka reer Burco ee nagala soo qayb galay, dhammaan shirkadaha nagala soo qayb galay, bulshada iyo ururada nagala soo qayb galay waa uga mahad celinaynaa. waxaanu bilownay ololihii annagoo xildhibaanadii iyo dawladdii hoose degmada Burco. waxaanu bilownay nadaafadda qaybtii saddexaad baanu bilownay. waxaanu ka bilownay degmada Sheekh Bashiir xaafadda Balaasa. sidaanu sheegnayna waxaanu u samayn doonaa inaanu maalin walba oo khamiisa insha Allah biidmillaahi kariim aanu xaafad aanu geli doono oo ka shaqayn doono. ilmaada reer qashinka iska ururino, aynu iska basrino, aynu iska hagaajino. war waa la idin heegan goobaha loogu talagalay geeya. baabuurtii baa idin tuban, baabuurta qashinka saara. Cabdirashiid Timir, Home Cable TV, Burco.